inaadnaan hadda naga sugaynin ammaan iyo wax la mid ah laakiin waxaanu ka hadli doonaa kolley xaaladda dalku ku sugan yahay iyo dadku marka taasaa ammaan aba in laga hadlo iyo geesinimo bismillaahi raxmaani raxiim mulki aan dhammaanaynin iyo mahad ilaah baa leh marti waxaad u loogtiyo baruur mayrac ari baa leh subag miid adhaydoo macaan malasna loo daale xiskin waxaad ka maashiyo rar iyo maraqna geel baa leh mahiigaanka soo daysta iyo mayayna roob baa leh miig baa orod le malag baa wax dila mirasho ar baa leh madfac dhacaya mawdkoo batiyo murug dagaal baa leh mas baa micile mool baa wax liqa qaraxna miinaa leh musuq maasuq ruuxii bartaa meelba kolistaag leh sharaf lagu macaashiyo wanaag muruq shaqeeyaa leh nafsi baa miskuhu kaa jabshiyo maadasha la'aan leh xaq magoogi laga qaaday baa maalin ka iftiin leh midab quruxsan oo calanka iyagaa milicsa oo eeg leh macdan iyo batrool laga qotiyo midhana ciiddaa leh gar maroorsan maalkoo la dhaco maamul xumadaa leh markay murugta xaajadu nin ragaa taliyo maarayn leh madax muuqda mindi saawira muhashadayn waa leh nin munaafaqaynayabaa ma iyo ahey leh gudcur iyo madow waa mugdiyo jaahil baa muran leh mufti baa mas'alo diin iyo maanka kuu dhaqi leh murti dhaxal leh maadays xigma leh mu'alifiin baa leh miisaan culus mas-uul iyo xil aad madaxa saartaa leh dowlad tii bulshadu mahadisaa magac iyo maamuus intaa waxaan ku darayaa bir madow iyo dhagax meel la dhigay nabad ma keenaa taa khaati bilaa laga taagan yahay dowladda waxaan u sheegaynaa waar birtu ma hadasho dhagaxuna ma hadlo waxaan ka codsanaynaa dadkii waa dhiban yahay meel la maraan la waayey dhaawicii meel la geeyaan la waayey bukaankii si loo soo booqdaan la waayey gaadiidkii meel baa layska dhigay haddana qaraxii waa imanaya in qaraxii yimaado iyo magaaladu inay xiran tahay oo habeenkii lagu fakero luuq hebel waa bannaan iyo dhagaxa lagula ordo iskuma kaaya qabato shacbigu taa waa ka cabanaya marka talaa la raba talo waa mahadsan yahay abwaan cabdidhuux waa gabayadii cusbaayeen hadda ku dalagalnay 20 sano ka hor aan u guurno marka abwaan bashiir sheekh maxamuud jimcaale dhalac bashiir farey iyo gar dhible gartaa waxaa la rabaa dhib kale in aad naqdaan idinku gartaas bal si aad u heshaan furaha meesha la gelinayo bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku horumarsanayaa gar dhible war aysan nimankaani ka tegin laakiin aan raba inaan sheegto anuu laabta iiga jiro horta intiinaan iyo madaxda waxaan u sheegaynaa dadweyne yaag afhayeenkii dadweynuhu wacayo guddoomiyaha gobolka banaadir maahan ra-iisul wasaaraha maahan madaxa baarlamaanka maaha waa madaxda dhaqanka iyo abwaanka wey dowladdan abwaanka la shaqeey oo la xidhiirin shacabka is arki maayaan been maaha warkay il isi saari maayaan il shacabka haddaan madax dhaqan iyo ag taagnin anaa afhayeen u ah bashiir farey baa la yidhahda waa yahay halkii aan kusii socdo marka sidaan sida laydiin sheegay 20 sano ka hor weeye wax ku dhowba meelahaas waxaa la yidhahdaa gar dhible maaha waa gar dhible adinkaa dhexdhexaayin doona dhan eega bal eega dhankaa kale eega dhugto xagga eega xirkiya dhulka eega dhadhaabtiyo buurta xirkiya dhirka eega hirkaa dhacabooda aan dhaafin halkiisa badaha dhufsan eega dhismaha bini aadan dhaqaaq iyo xoogga ilaahay dhameeyey isdhehda laftiinu dhankaan kale eega adduunyo dhibaato dhacdiidiya jiifto dalcada aan dhammaanin ayaa la dhex keenay mid baa dhimanaya mid baa dhalanaya mid baa dhaqanaya mid baa dhaxal seegay mid baa dhalag jiifo mid baa dhibban gaajo gabyaaga dhulkeenna iyo hoggaan dhaqameedkow dhulkaa degi waaye dadkiina dhammaaday dhurwaa isku haystaan dhacdooyinka yaabka dhowr aan ka tilmaamo si loo dhexdhexaadsiyo dhacdooyinka yaabka dhowr aan ka tilmaamo ruuxaan dhihidaada dhegtiisu maqlaynin oo aan dhimirkiisa dhabbada ku helaynin hadduu dhuma ruuxaan dhibtiisu ku seegin ruux dhooma argeega shisheeya ku dhaansho haddaa dhig tiraahda warkii dhibsanaya markuu la dhacaa dharkaaga hagoogan dhumaha aan xishoonin iyo kan ceebtu dhibayso dhaliisha midkeela keebaa dhibanaasa gartaa dhexdhexaadi waa garateen labadaas nin waa nin xishoonaya
oo wadaniya oo wanaagsan iyo awr kiraale dalka isku haysta keebaa gar leh dhaloolka laftiisa dhacaan hadiyadka dhaway ka dhigaana dhaloolka laftiisa dhacaan hadiyadka dhaway ka dhigaane dhunkaal xabagtiina haddii lagu dheho dhalaalkiiyo muuqa dhugtaa kama soco dhallaanka guraana culayska dhammaystir ma dhaafsana toog qofkii sunta dhuuqay markuu dhanna diido dadkaa la dhawaaqa dhurwaaguragaan haday ka dhigeen dhunkaal weeye geed war dhallaanka xabkaystii kan ruuxu dhibayo dhaliisha midkeele keebaa dhibanaasa ayana dhexdhexaad wiilka yara xabkaystaahay kalama yaqaano dhuunkaasha iyo hadida qofka suuqa markuu yaalana cidina kalama saari karto muuqooda marka xaq buu u leeyahay wiilku wax kasta uu culays miisaanka u dareemayo inuu suuqa geysto ninka soo gatayna hadda kalamama yaqaano garbay ahayd inuu hadigiisa gato wuuna ku dhiban gaaray yaa gardaran labadooda dhagool la yaqiinay yaa xaaji dhiblaawo u dhiibtay alaabo dharaar bay in qaaday dhigiyo waxna keenye sanada bilo dhowra markuu dhiranayay dhagoolkii laftiisa dhacoo labadiiba dhab buu indhabela dhawaaqna ha sheegin haween dhaxma keentay dhagool hantidiisii dhiblaawo su'aale dhaksuu ku jawaabay dheeraan ku yahaaya intaa ku dharaarta haweenkii on dhowrsan iyo carruur toban dhaafta bakhaarkii dhexdiisa dhiblaawona joogo shiidee dhagax tuuree dhiblaawo laftiisa iyo dhiblaawo laftiisa intaa dhagax tuurta dhaliisha midkeela keebaa dhibanaasa ayaan dhexdhexaad waxa weeye dhiblaawo waxaa lagu ogaa hadda in lacag loo dhiibto reerku way yaqiineen gurigan in dukaankan lacagta u taalo way yaqiineen dhiblaana wuxuu og yahay dhiblaawana in lacagta ka dhammaatay ninkiina indha male dhigana male garta dhexdhexaadiya libaax dhihi jooga dharaarana gooman gob weeye ee dhowrsan toon weyn isku dhoon lekiyo dhacdiida dhufaan kora naaxay oo soo xela dhaafay geedkii uu ku dhuntay hadduu dhacardaaqo oo uu dhiga meesha nin uu dhaga geelba ka dhacay ratigaas raadkiina ku dhiirin hadduu dhinaciisa raqdiisii ka dheehdo waa dhowra libaaxay hadduu dhoksoboodo oo argoonluhu dhacarto ninkuna caradhaafoo dhumbuur lixlagaaba intuu ku dhalaarsho dhambaysha ka raacdo fudaydi dhicidiisa dharbaaxa fijaasa hadduu dhag ku siiyo oo dhaawac xungaare markuu dhibibtooso kan cayrtu dhibaysi iyo aarkii dhihi joogay dhaliisha midkeele keebaa dhibanaasa ayana dhexdhexaad libaaxu gar buu u leeyahay waa ugaarsato geedkanuu hoos jiifaa ratibaa ugu yimid in waa dhiiku nool inuu cuno xaq buu u lahaa ninkan ratiga lehuna inuu ratigiisu duurka u daaqo oo uu sii daysto waa cagaar ku noole xaq buu u lahaa yaa gardaran labadooda nin baa dhaqday xoolo dhurwaana rabaystay dhigtoo axdi yeeshe wuxuuna ku dhaarshay inuu dhirta daajad waagna ka dhowro dhiil buu inta siiyey dhagaha ugu sheegay harkii dharag caano dhaydii inta diiday dhiigguu ka helaaya dhowr buu kaga tuuray markuu dhargay naahay dhawaaqay hinraagay dhowr jeel ku ladaabtay dhiggiisugu yeedhay dhoodaa u dhaweyda dooxuu u dhaqaaqay ciidoona haddii dhowrinaya kii dhaarta rumaystay dhaliisha midkeela keebaa dhibanaasa ayana dhexdhexaad waa dhiiku nool ama ha la soo koriyo ama yaan la soo korin dhiiku nool weeye xaq buu u lahaa inuu neefkan cuno ninkanina dhiiluu caana uga buuxshay wuuna dhaariyey ballanna wuu la galay wuuna barbaariyey xoolihiina wuu ka cunay yaa gardaran soo yaal dhaxaladka taariikhdu dhigmayso wardhili amaasha aan caawana dhaanshay midkaan cilmi dhaafin iyo adduunka dhaqaaqii casriga lagu dhaatay aboolo la dhiibshay khabiir dhisageeya dayaxa dhakadiisa kii dhiisha amahday hadday dhici weyda farqaa u dhexeeye dhaliisha midkeele keebaa dhibanaasa ayana dhexdhexaad ninka dayaxa jira iyo kani waxay rabaan inay wada noolaadaan bakaaraha lugaynaya yaa gardaran labadooda suldaamada dhiiran amiirada dhaadan cigaalada dheer lakhaliiska dhex jooga qof baa dhiban gaasho kuwaa dhayalmooda iyo qaxooti dhabbaysan dharaar harsi diiday uldheeraha tuugsi hidiya dhaqan moodo kiniisada hor dhooman ee baadari dhuunyo diin baa ka dhaxaysa dhaliisha midkeele keebaa dhibanaasi ayana dhexdhexaad muslimaan nahay leeyihiin waxna u taagi mayaan gaaladina way cawaansadeen xaq bayna u leeyihiin hadba waxaa kuu sokeeya midkii wax ku taraya laakiin yaa gardaran labadaas mooryaan dhabayaasha dhexdooda isbaaro dhigtoon ka xishoonin mooryaan dhabayaasha dhexdooda isbaaro dhigtoon ka xishoonin kuwii dhalay tuugto qaarbiilka ka dhowro kii faalka u dhiibay booshkiina u dhaanshay bulshada aan ka dhiidhin iyo adduunka ku dheehda dhaliisha midkeela keebaa dhibanaasa shantaa dhexdhexaad beesha caalamka inaga yaa gardaran dhammaan madaxweyne oo aan dhicin waana siyaasi dhaguuga kursiga dhamadaada inuu dhex fadhiista lagaa dhex qaniyi dhammaan madaxweyne oo aan dhicin waana siyaasi dhaguuga kursiga dhamadaada inuu dhex fadhiista lagaa dhex qaniyin iyo bulshaday ka dhammaatay mid baa dhintay aasa dharaar bacol taagan darteed dhakafaarsan dhaliisha midkeele keebaa dhibanaasi ayaan dhexdhexaad gar dhib lahaan idinkugu simaynaa dhexdhexaadintana idinkaa laydinka rabaa sababtoo ah dal dhammaad rabtaan inaad hogaamiso
qabsheegiya daacad aan eex u dhowaanin qabiilna ka dhowsan intaa dhexdhexaadsiya gartaa ha dhame war ilaahay baa idinku dhaarsiya mid qabiil ka iyuu ii soo jawaabi labada gabay oo kale waa idin dib dhigaynaa waa mahadsantii gabay qabyo ah baan rabaa 4 eray inaan ka sii bilaabo laakiin gabaygaa waxaan dhammaystirayaa jawaabta ay ka bixiso madaxdu waxaan aan sheegayno inta jawigu sidan yahay xaalku jahawareer yahay bulshaduna jirraban tahay jid kastaaba xidhan yahay caasimaddu jeel tahay naf waxaa u jeedaa kollay jiibsan maysee jawaab baa la sugayaa la jeclaysto weligeed waxaan dhammaystirayaa marka jawaab fiican laga bixiyo haddii jawaab fiican laga bixin waayana gabaygu meel kaluu aadi doonaa